isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Saraar oo waraysi qaasasiyay telefishanka caalamiga Hon Cable TV ayaa ka warbixiyay wasaaraddiisu shaqada ay u hayso gobolka. Sidoo kale isuduwuhu wuxuu ka warbixiyay waxyaabihii uu qabsoomay sanadkii tagay iyo waxyaabaha uu qorshaysan sanadka soo socda. Waana kan isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Saraar oo arrimahaasi ka hadlaya. halkan waa xaruntii guud ee xafiiska wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Saraar. xaruntii guud weeyaan. xarumo kalena way jiraan oo aan ku leenahay gobolka. xaaladda iminka jirta xoolaha iminka xaaladooda caafimaad aad bay u fiican tahay 100%. qayb ka mid ah gobolka Saraarna roob fiican baa ka daay. xooluhuna aad bay wanaagsan yihiin. waana lagu soo guuray iminka gobolka Sanaag oo kale. xaggan oo kale way soo guureen meelaha roobka gobolka Saraar xaqii roobku helay oo xaruntan waa xaruntii dhexe. waa weeyaan waxay sameeysaa laba daawin joogta oo qayb keenaysa oo daawinta xoolaha. sanadkan gudihiisana waxaan sameynay talaal guud oo dalka dhan ka soconayay oo sanbabka ahaa. iminkana qayb ka mid ah daawin baa ka socota oo gobolkan ka wadnaa anagu wasaaradahan noo qorshaysan sanadkanna waa meelo badan oo xarumo badan oo kaliinsaana waan sameynaa qorshaha nagu jirta. qaybta halkan caynta xafiiska qayb labaadna waxaan ka dhisi doonaa deegaanka waridaad oo iyadana qorshaheedii aan ku jirno hadda in la dhiso. waxaan rajaynaynaa insha Allah sanadkan iyo sanadka ku xigaba haddii alla ka dhigo in xarumo badan iyo laamo badan oo shaqeeyaan xarun badan aan ka sameyn doono gobolka. dhawaana qaar baan furi doonaa meelaha health post ah oo caafimaadka xoolaha oo clinics xoolaha lagu daweeyo. xagga tababaradana hay'adaha naga caawiya dadka coach-trainers-ka. reegura badan baa ku soo guuray gobolka oo iminkaan ku guda jirno hawshoodii oo xagga anagoo eegana caafimaadkooda xoolaha oo meel fofo ka kala yimi. marka hadda gudaha team baa iminka gudaha ku guda jira hawlahaas. وعلي آدم درد علي تاني ورركة تلفزيون كون كيبل مقالة عينبا.